Hey guys, welcome back. Tonight we're gonna learn some important sentence. So I know my English is broken, but I'm just trying to speak English. So marka caawa waxaan baran doonaa insha Allah jumlada aad u muhiim ah. Jumlada ugu horeysa soo qaadano waa I am taking off my shoes. Yani aniga waxaan iska siibayaa kabahayga. Waxaad rabtaa in English ku dhahdo aniga waxaan iska siibayaa ama iska bixinayaa kabahayga. Waxaa leedahay I'm taking off my shoes. Aniga waxaan iska siibayaa ama iska bixinayaa kabahayga. Sidoo kale waxaad rabtaa in English ku dhahdo aniga waxaan xiranayaa kabahayga. I am putting on my shoes. I like that. Markaad rabto in English ku dhahdo aniga waxaan xiranayaa ama aan gashanayaa kabahayga. Waxaa leedahay I am putting on my shoes. Aniga waxaan xiranayaa kabahayga. I am putting on my shoes. Aniga waxaan gashanayaa kabahayga. Sidoo kale waxaad rabtaa in English ku dhahdo TV-ga dheere. Yani TV-ga codkiisa dheere. Waxaa leedahay turn up the TV. يعني TV-ga dheere. Turn up the TV. TV-ga dheere. Sidoo kale waxaad rabtaa in English ku dhahdo TV-ga gaabi. Yani codkiisa gaabi. Inuu codkiisa dheeri aad aragtay. waxaad rabtaa in English ku dhahdo TV-ga codkiisa gaabi. waxaa leedahay yani turn down the TV. Turn down the TV ayaa leedahay. sidoo kale waxaad markaad rabto in English ku dhahdo surwaalka xiro. yani surwaalkaaga xiro. waxaa leedahay put on your pants. xiro surwaalkaaga. sidoo kale markaad rabto in English ku dhahdo xiro shaarkaaga. waxaa leedahay put on your shirt. Put on your shirt. يعني xiro shaarkaaga ayaa leedahay. Salaamu calaykum.